dhegaystayaal maanseyahanadii muddada dheer gabayada iyo geeraarada isku halxiraalayn jiray kuwii ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa labadii reer ciideedka ahaa weerar burxan iyo faarax cabdi guuleed oo faarax caytama loo yiqin. waxay ahaayeen laba gabyaa oo aan kala dhicin, isu dhigma oo maansada ku kaftami jiray, ku xafiiltami jiray, mararka qaarkoodna aad isugu jareexan jiray. ha isu dhigmeen oo hibada maansa curinta labadu ha ka wada sinaadeene waxbaa faarax u dheeraa. wuxuu ahaa nin ay wax fiicanay uga bilownaayeen qaar ka mid ah kasmooyinkii kutubta carabta oo keliya waayadiisii ay soomaalidu ka baran jirtay, gaar ahaan fiqhiga shareecada islaamka, mandiqa iyo xidiga aqoonta. taasna waxaa lagu rumaysan karaa gabaygii halxiraalaha iyo xujooyinka miiran ahaa ee uu kaga qaybgeli jiray silsiladii maanso ee harac dheera la baxday. hormuudyadii gabayga soomaaliduna bilowgii qarnigii 20aad ay isugu halcelin jireen. waa silsiladii hunguriga iyo cirweynada ku saabsanayd ee cali sharmaarke, qamaan bulxan, cali dhuux, sayid maxamed, gooni cabdi xaaji, ismaaciil mire iyo maansayahanadii kale ee afkooda la dhowri jiray ay isku arkeen. raggaa aan soo magac dhibay ayay weerar iyo faarax la-aynay ahaayeen. kol dhow sidaan filaayo inaad ii furi doontaanna tixaha halxiraalaha ee labadooda naga soo gaaray waa qaar aad u cudoon, murti weyn xambaarsan, in door ahna inaga baraaya indheergarannimada maansayahanadii hore ee Soomaaliyeed. si kastaba ha ahaatee, qaybaha aanan hubin in idaacad laga baahiyo inay ku habboon yihiin intaan iska dhaafo aan idinka soo xulo 3 su'aaloodoo weerar uu faarax ku halxiraalaystay, isla goobtii lagu weydiiyeyna uu faarax ku wada furay. weerar ayaa halxiraalihiisii hore wuxuu faarax ku caraystay inuu sheego waxa uu uga jeedo rida dhashay oo waxartii laga soo qabtay ay isla markiiba reerkii lahaa caana ugu filaatay, yar iyo weynna ay ka wada dhergeen. wuxuu yidhi, rid dhashoo waxarteedii reer dhan caana ku deeqday, bal risaale ka sheeg. faarax oo gartay wixii uu weerar u jeeday ayaa is yidhi, alla ilahay rida wuxuu ka wadaa firida oo ah iniinta ciidda lagu rido marka masagada la abuuraayo. waxartana wuxuu ula jeedaa sabuulka oo ay iniintaasi dhasho, badarka uu sido ee laga goostana uu reerkii beertay ka dhergo. sidaas ayuu faarax jawaabtii halxiraalaha u gartay. ha yeeshee wuxuu ka baqay markuu furo inuu weerar ku diido oo waxba maad furin uu ku yidhaahdo. dabadeedna intuu jawaabtii afeef ka hormarsaday ayuu yidhi, rid dhashoo waxarteedii reer dhan caana ku deeqday, haddii aan run ka sheego asaad been ka rogaasho, rabbi baan kugu raacshaye, xilli roob aad sugaysaad firi meel ku ridaayo, raxmaddii ku heshaayo, habeenay ku radaayo, biqlay soo rogataayo, laamay raaricisaayo, dheeliday ruxruxdaayo, sabuul gees ka ridaayo, hadhow baa la riftaayo, mooyaha lagu riiqiyo, dherigay ku ritaano, intii raad iyo ruux laba risiq waa u noqda. halxiraalihii labaad ee weerar bulxanna waxa uu ku saabsanaa raha oo ah bahal yar oo biriga iyo biyahaba ku noolaada. markuu roobku da'ana aan afka isku darine ballida iyo jidhaamaha goor walbaba ka jeeleeya. su-aasha weerar waxay ahayd, faaraxow, marba haddii noolayaasha oo idil ay iniba abuur ahaan isu raacsan tahay, ma sheegi kartaa bahalka raha la yidhaahdo bahallada cidda ay isu xigaan ee ay bahwadaagta yihiin? wuxuu yidhi, inta raad iyo ruux leh lababa wa isku rafiiqe, rahyay aana yihiin. faarax wuxuu taana ka celiyey jawaab aan kaftanku ka marayno qofkii maqlaa aanu horayn inuu muusoodo haddii uusan qoslinba, gaar ahaan markuu dhab u yaqaan abuurta raha iyo dhurwaaga. wuxuu yidhi, raadka ka weynoo ruuxa ka dheere, ruqufraaquf dhaqaaqiyo, reeryaqaad xubadiisiyo, miskihiisa radeeban, raska gaaban dhurwaagay raha aana yihiinoo wa isku reer dhicisow. halxiraalihii saddexaad ee weerar wuxuu isaguna ahaa, faaraxow, waxaad sheegtaa 30 reer
oo sacna allaha ka dhigee aan bar adduunye lagu ogeyn haddana qumbayaal subag ah qaadi karila wuxuu yidhi faaraxow 30 reeroon sac adduunye ka soofin oo subaggii sidii weyday sifahooda balsheeg kanna faarax wuu gartay wuxuu is yidhi halxiraalaha weerar jawaabtiisu laba mid unbay noqon kartaa safar uu awrta subag ugu raran yahay oo ay reero badani isku soo darsadeen magaalooyinka qaarkoodna ganac ugu wata taasi waa mid tan kale ee suuragalka ahina waxay ula ekaatay sisinta oo ah nagaar laga tuujiyo saliid cunnada lagu iidaanto markaas buu jawaabtiisi ku soo gabagabeeyey labadaas haddii ay noqon weydana waa wax aan jirinoo aad weerarow iska dhoobdhoobatay wuxuu yidhi weerarow 30 reeroon sac adduunye ka soofinoo subagii sidii weyday safar baa la yidhaayo saa hadday noqon weydana sisin baa la yidhaa saa hadday noqon weydana safsadaa la yidhaa waxaa in dib loogu noqdo mudan madahaygana faahfaahin dheeraada u baahan ereyga safsado oo geeraarkiisa jawaabta ah meeriska ugu dambeeya uu faarax ku soo qaatay waa marka uu leeyahay saa hadday noqon weydana safsadaa la yidhaah ereygu waa safsada waa erey asal ahaan afka giriigga ka soo jeeda dabadeedna afka carbeed ku soo biiray waa hore iyo waqtiyadii falsafadihii ummaddaas ay afkooda u soo rogan jireen waa erey cilmiga mandiqa la yidhaahda lagu yaqaan loogana jeedo hadal israacsan iyo hawraar inay toosan tahay la moodo oo si qurxoon la isu saarsaaray si aan run ahayne loola jeedo in dood markaa taagan lagu marsado qof ama dad loo dan leeyahayna lagu marin habaabiyo sidaa darteed adeegsiga ereygaasi wuxuu markhaati u yahay faarax caytama inaanu gabyaa keliya ahayne uu lahaa aqoon rasmi ah oo uu kutubtii hore ka kororsaday sida la wariyena isaga oo ardaya uu culunta qaarkeed magaalada harar ugu xeraystay wax badanna halkaa ka raacday dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo sheekooyin soomaaliyeed oo sarbeeban hadduu eebba idmo